labaatan sano soo dhaafay nolosha waxaan ka bartay waxyaalo kala duwan waxaan la kulmay dad kala duwan waxaan ka shaqeeyay shaqooyin kala duwan waxaan bartay dhaqamo kala duwan oo qaarna ay wanaagsanaayeen qaarna ay xumaayeen waxa ugu wanaagsan aan bartay waxay tahay inaad samaysato dhaqan wanaagsan inaad samaysato dabeecad wanaagsan inaad samaysato rutiin wanaagsan inaad samaysato wax wanaagsan oo ku anfacaya ama iminkaas aad samaynaysid ku anfacaya ama si ku anfacaya mustaqbalka dambe ee imaanaya haddii laakiin aadan qorshe aad samaysan nolosha qorshe ku samaynaysaa haddii aad samaysan dhaqan wanaagsanna dhaqan xun bay ku samaynaysaa haddii yacni aadan samaysan jadwal wanaagsan isla markaana ku horseedaya inaad gaarto hadafkaagana waxay ku samaynaysaa noloshu dhaqan xun oo hoos ku dhigaya kaaridii nolosha isla markaana aad ka shalay doontid bay ku samaynaysaa haddii nolosha adiga aadan wadin nolosha ayadaa ku wadaysa ayadaa ku jihaynaysa ayadaa gaari iyo steering ku ah ayadaa ku geynaysa meesha xun oo run ahaantii mustaqbalkaagana aan u fiicnayn yacni nolol ahaan adiga aan ku fiicnayn waxaad ogaataa wax walbo aad samaynayso wax walbo aad ku jirto iminka ama way wanaagsan yihiin ama way xun yihiin go'aankeedana adigaa iska lahay markaad bilaabaysay go'aankeeda adigaa iska lahay resultigeedana adigaa iska leh ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado adiga ayaa iska resultigeeda waayo miraha aad beerato baad goranaysaa haddii xun yihiinna kuwa xun baad goranaysaa oo aad guraysaa carruurtaada guraysaa oo aad guraysaa walaalaha aad guraysaa oo qofka kuwa hareeraysan dadka kuwa hareeraysan aad guraysaa haddii laakiin miro wanaagsan aad beerato ilmahaagaa u beeraysaa adigaa isku beeraysid dadka kuwa hareeraysan baad u beeraysaa nolol barwaaqo iyo bashbash reyn weeyaan laakiin waxaad ogaataa go'aanka adigaa iska leh iminka dib isku xisaabi waxaa la yidhi xaasibu qabla an tuxaasibu isxisaabi inta adiga aanu xisaabin maanta xaggee maraysaa maanta maxaa ku hagaagsan maanta dhaqan ku jirtid dabeecadda maanta aa haysato dabeecad noocee waaye waxaad mar walba ogaataa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la weydiiyey yaa rasuulallah malkayis baa la yidhi rasuulallah noo sheeg aqlowa kumaa la yidhi markaasu wuxuu yidhi malkayisu madaana nafta wa camila lima bacda almawt loo fiirso waa qofka ka fikera noloshiisa iyo mayd kadib wax imaanaya qof ka fikra waayo qof aqlow la yidhaahdo macnaheedu waxay tahay in aad samaysato cibaado wanaagsan oo ku horseeda inaad gaarto maalinta qiyaamo in janno lagu geeyo Allah subhanahu wa ta'ala ka dhigo kuwa oo sare u qaaday waxaad ku helaysaa waa shaqo waxaad ku helaysaa waa amal wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan